ليت الصوماليلاند مالطا هذه بمحسين وحن أكرم كوا كان بنينا مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدني أحمد محمود سلايو يو كويجيكيسا عبد الرحمن سيلي وحنا كل دي وحي اللي قاعد هي أديت تعرفي Somaliland iyo xorriyad inta ku gaadhay ama halku shiro Soomaaliyeed tagigoodii baa ka hadlay anna markaa dib u maayo waxaan dhanaadaya inuu mahadnaqo marti sharafta haweenka dib u maayo dhalinyarada juhdiga badan geliyay xafladda la qabsanto iyadoo way dhacdaa yani in xilli duruufeed ku sii waayay isteed turkiga ugu dhagan laakiin waa isteed turkiga may xuseedu bay u taagantay soddonka may maanta suuli ma aha maalin kale oo ujeedo kale aan leenahay qaranada Soomaaliland baynu xusanaa iyo soo isteed turkiga may aad iyo aad baniimadu ay u mahadsan yihiin tiradoodu ma badna haddana tayadoodu waa mid aanu aad iyo aad aanu ugu mahadcelinaynaa cid alla cidii Soomaaliland wax tarta dibadda iyo guud meel kasta ay joogto aanu leenahay cidii ka sii jeeda Ilaahay ha u soo jeediyo cidii diidana Ilaahay xaq ha fahansiiyo iyagana Ilaahay barwaaqada iyo wanaagga ay ku jiraan ha u siyaadiyo ayaanu Ilaahay uga baryanaa inta waxa ay raaca halkan waynu isugu nimid waxaynu isugu nimid waa xaflad dhamaanteen Soomaaliland baynu nahay حسب iyo caalamiyaal mar hadii xafladda Soomaaliland la isugu yimaado madax meel ka sareeyo la saraaxa ma jiro xusbi la soo casmeeyana ma jiro qof walba shaarka Soomaaliland ku kumanaya shaarka xusbiga ma shaqeynaya saamo kan meel day xiro la xidigo xumay fiican maalinta ay xafladda 8 may tahay xusbi ma shaqeeyo taana hal ogaado mid adeer wuxuu yiraahdaa kan xusbiga qaar bana soo casmin maalin xusbi ma aha waa maalinta qaranimada taana sidaas hal ogaado وقت ودوينو كوبن yahay muddo yar oo kooban baynu hadhay dad badan hadalka waa iiga dambeynaya aad iyo aad baan idin salaamaya dhamaantiiba inta meesha joogta iyo inta ka maqan iyo in walba aad iyo aad baan u salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan asxaabta meesha isugu timid dhalinyarada waayeelka mutasharafka haweenka iyo dhamaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta joogta waxaan ku salaamay salaamku waxaan leeyahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaamkii kullu waxaynu joognaa maalin qaran maalin sida Muuse uu sheegay ma aha maalin xisbiya maalin gooniya waa maalin qaran maalin dadka oo dhan xilka saaran yahay weeyaan qaran walibana wuxuu leeyahay astaan iyo maalin gooniya marka hore waxaan salaam qaali u dirayaa dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliland dal iyo dibadda meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay aad iyo aad ugu faraxsanahay Ilaahay inuu gaarsiiyay sanadii 24aad sanadeeda insha Allah Ilaahay wuxuu ka rajaynayaa inagoo horumar gaarnay iyo ikraaf buuxa insha Allah Ilaahay inuu gaarsiiyo nabad inta waxay raacaa aad iyo aad u salaamaya dhamaan madaxda qaranka ugu horeeyo madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo madaxweyne ku-xigeenka dhamaan ciidamada qaranka ee waddanka u soo halgamay iyo dhamaanba ciidamada qaranka xaasas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم ضمان مرتشرفت كسوق الكشي مناسبة شاليد ريرنات سوماليلاند طبقابياش حفلة جربية هواك يدا ليرد بيش تشوفته وعنكم السلام يا صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته salaanka bacdi runtii aad baan uga mahad celinayaa dhalinyaradan isu xilqaantay inay soo abaabusho maanta xafladan ay ku xusayaan 18 guuradii 24 guuradii Soomaaliland ka soo wareegtay xilligii aynu iska dulqaadnay dhergigii hubaysnaa ee dalka maamuli jiray badanka dadka reer Soomaaliland marka ay maqlaan eedin bay baa la qabanayaa waxay u fahmaan inay Soomaaliland dhalatay maanta Soomaaliland maanta ma dhalanin daahan waa 60 jir Soomaaliland laakiinse Soomaaliland maanta waxa ay ugu naaloonaysaa waxaan jira cadaaladdan horumarkan iyo waxyaabahan imika ay gaadhay
xilliga ay heshay weeyaan runtii maanta markii aan xafladan imanayay waan aan la yar kaftaba qoladan xafladda soo agaasitee soddonkii May waxaa la shirbalaa waa qoladii reer Hargeysa oo xusaysa maalintii maxaan ku rahdahay dalka lagu soo noqday laakiin se waa ku beegan aad baan uga mahadnaqayaa mujaahidka iyo inanku waxa ay iyaguna sheegeen in maanta ay tahay maalin xisbi aanay ahayn ay tahay maalin qaran waa runtood waa qaraynaa inay maalin qaran tahay laakiinse qaranka waa ka dhalay xisbiyada kama imanin xisbiyadu meel kale kama imanin ee qaranka iyo adeega haddaan xisbi jirinna waxaa jiri doona maxaan ku dhahdaay beelihii iyo wixii maxaan ku dhahdaay hore looga soo baxay marka runtii waxaan u arkaa xisbiga marka uu meel marayo waxa uu yahay astaan ka mid ah astaamaha qaranka Somaliland marka in la diido ma aaminsan waxaan se taageersanahay inaan asxaab maanta oo kale lagu kala abtirsanin dhaliilo iyo maxaan ku dhahdaay waxyaabo kalena aan halkan la isaga soo jeedinin laakiin se laga wada hadlo wixii qarankan u dan ah iyo wixii maxaan ku dhahdaay u dan ah ummadda reer Somaliland inta haddaan ka gudbo waxaan halkan ka hambaliyaynayaa runtii aadna aan ugu faraxsanahay go'aanada geesnimada leh ee ay soo saareen asxaabta qaranka iyo maxaan ku dhahday xukuumadda maanta Somaliland waxaan u sheegayaa dhalinyarada iyo waayeelka halkan joogaba xisbi kastaaba waxa uu ku khasban yahay wixii dalka iyo dadka u dana sidaa daraaddeed waxaan filayaa in asxaabta iyo hogaamiyeyaasha maanta ay inaga farxiyeen runtii go'aanada ay soo saareen mana aha waxaasi wax maanta ku ugubaas Somaliland ee mar kasta oo ay adkaataba waxaan rajaynayaa maanta iyo wixii ka dambeeyaba ciidanka Ilaahay in isafgarad wada xaajood iyo wada hadal lagu dhameyn doono xaaladaha jira inta loo dhigtaagayana waxaan filayaa inta xaalka ay hadhay inay iska soo dhamaan doonto halkan waxaan uga mahadnaqayaa xisbi xaakimka runtii gartay maanta wixii mucaaradku ay diidanaayeen in ay ka garaabaan kuna qancaan wixii ay markaa ban moodeen waa tallaabo runtii geesnimo ah madaxweynaha gudoomiyaha xisbiga iyo dhammaan ummadii ka qayb gashay hawshan hadday wasiiradii iyo hadday guurti tahayba yadana waan uga mahadnaqayaa intaa haddaan ka gudbo runtii jaaliyadda reernaant ee halkan maanta joogta waa jaaliyad aan tiradooda aad u badnayn laakiinse tayadoodu ay aad u badan tahay dalka haddaba dadka reer France waxaan ku dhiirigelin lahaa iyaguna sidoo kale runtii waxay dadaalka ay muujiyeen reer Somaliland reernaant aan leeyahay reernaant dadaalka ay muujiyeen inaynu kaga dayano ayaa muhiima tan qarannimada Somaliland maanta ma aha xafladii koowaad aan anigu ka soo qayb galo runtii xaflad kale oo lagu dhigayay oo shay iyadana waan ka qayb galay waxaan uga qayb galayay waxay ahayd wixii karaankayga ah inaan ka ilaahdo haddii alla ka dhigo waxaan markaa jecelahay inaynu u midowno xafladaha soo socda ee dalka ee lagu xusayo maalmaha munaasabadaha ah ee qarannimada reer Somaliland oo kale waan ku dheeraaday hadalkii aad iyo aad baan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dadka badan ee halkan isugu timid hor iyo horaanba hadalkayga waxaan ku bilaabi doonaa sunnihii la maray ee ahaa inaad u mahad celiyo jaaliyadda tirada yar sidii la sheegay ee tayadeeduna ay weyn tahay ee garwadeenka uu ka yahay cabdiqani waxaan uga mahad celinayaa sida ay u soo abaabuleen barnaamijkan qiimaha iyo qaayaha badan ee dhammaantiin aynu ka wada muuqanno iyo meel walba la iskaga yimid ilaa meelo fogfog ina looga yimid baan aad iyo aad uga mahad celinayaa marka hore mar labaad kulley waxaynu isugu nimid waxa weeyaan xafladii 18 May waa sanad guuradii 24aad ee Jamhuuriyadda Somaliland waqtiganna sidaad ogsoon tihiin adduunyadu waxay noqotay oo kale tuulo yar oo la iska wada warhayo 18 May laga soo bilaabo May sidee u dhalatay aad baa looga warramay qiimaha ay leedahay iyo taariikhdeeda waana mudan tahay in fara badan in lagu celiyo laakiin waadaan halkan uga faa'iideysan doono
wajiyada quruxda badan ee hor fadhiya iyo dumarka sharafta badan leh laba qodob bay noqon doontaa insha Allah qodobka koowaad waxaan uga faa'iideysanayaa oo xoogna u taageerayaa jaaliyada reer nood ee meesha joogta in ay ka faa'iideystaan iyo walaalaha kalaba inuu isbarasho fiican iyo isku xidhnaansho ay noqoto maadaama aynu meeshaynu joogno aynu ku cusubnahay talabaadna ee aan insha Allah uga faa'iideysan doono halkani waxay noqon doontaa tu igu xanuun kulul oon jecelahay in aan idin soo gudbiyo taaniga igu xanuunka kulul tiyo soo tilmaamay in ay tiimay ay mudan tahay in la xuso aad baa looga soo warramay dad iga aqoon badan ay tiimay baa ka hadlay dad iga faseexsan ayaa ka hadlay dad iga wanaagsan 18 May inay ka hadlaan ayaa xoog uga hadlay waxaan jecelahay midhaay waxaan u qulqulay aan idin sheegay in aan idin kula wadaago farxadan taasoo ah guud ee waajibka ah in la isku xidhnaada qiimaha ay leedahay dhammaanteen waynu ka wada dheregsanahay ku tiigaali maayo laakiin kelmadda aan doonayo inaan maanta halkan ka jeediyo insha Allah tacaala dhammaanteen baano aniga iskaga bilaabay waxay noqon doontaa haddii Ilaahay idhaahdo sheeko yar oo gaaban oo laga soo gaaray beri hore waqtigii Cismaaniyiinta waxaa jiri jiray nin la yiraahdo Khayruddin wuxuu ku noolaa dalka Turkiga wuxuu kaga noolaa magaalada Istanbul wuxuu sii deganaa xaafad Istanbul ka mid ah la yiraahdo Fatih Khayruddin wuxuu ahaa nin faqiir ah oo xaas iyo ubad leh oo aan waxba haysan oo faqiir ah aroortii gurigiisa markuu ka baxo wuxuu arki jiray goobaha hilibka lagu iibiyo iyo goobaha xalwadaha lagu iibiyo iyo goobaha lagu iibiyo khudradda laakiin ayaan daro muu iibsan kari jirin faqiir buu ahaa isku keegi jiray naftiisa waxay jeclaan jirtay inuu iibsado hilibkan khudraddan xalwadan ayuu jeclaa muddo markay soo laba rogay waqtigii ayaa Khayruddin dhaqaalihii u wanaagsanaaday wuxuu helay inuu iibsan karo kiilo hiliba kiilo khudrada macmacaan inuu iibsan karo wixii uu baahnaa uu arkay markuu lacagtii la soo bixisay ayuu fikray wuxuu yiri shalayba waad noolayd soo maaha ha talow maxaa ka fiican aad ku bedelan lahayd ninkii Turkiga ahaa ee aan doonayay inuu sheekadiisa ka dambil qaadano ayaa wuxuu go'aansaday inuu gurigii intuu ku noqday sanduuq uu sameeyay sanduuqa wuxuu ku ridaa saakin yadum buu yiraahdaa saakin yadum waa af Turki wax weeyaan inaan cunay ka soo qaad boqolkii uu siisanayay kiilooga hilibka ama 150 shilin uu siisanayay khudradda buu yiraahdaa ka soo qaad inaan cunay sanduuqaas ku ridaa maalinta dambe uu soo dhaqaaqa wuxuu isiraahdaa uu khudrad iibso maya uu yiraahdo warkada ayaa uu bood noolayde nin waraca oo xalaal miirad waa sanduuqiigu ku ridaa ilaa intuu geeriyoonayay wixii naftiisu ay jeclayd ee xalwad lahayd ee lahaa khudrad ee hilib lahaa wuxuu iska mamnuucay madaxiisa hal hadaf baa ku jiray sheekada gabagabadeedaynu ku ogaan doonaa markuu sanduuqii ku guray lacagtii ayuu ninkii geeriyooday isagoo sanduuqa ujeedadii ugu gurayay aan weli gaarin xaaskiisu way ogay gabar khayr badanna way ahayd dadkii la deganaa Fatih xaafadda Istanbul ka mid ah iyo ehelkiisiiba u yeedhay tiray ninka Khayruddin marxuumkan aynu maanta aasayna sanduuqan wuxuu ku ridi jiray lacagta uu isiraado wax iibso waxaan oran jiray saaqum yadum kaba soo qaad inaan cunay shaygii lacagtii uu isticmaalaynay ku iibsanay kaba soo sanduuqan ku guri jiray sanduuqii daboolka marka laga qaaday waxa loogu tagay lacag badan lacagtii badneed markii loogu tagay gabadhiisu tii wali wuxuu jeclaa inuu maalmaha ka mid ah masaajid Ilaahay dhiso lacagtii baa la xisaabiyay masaajid baa la dhisay ilaa maantada waa masaajidada ugu taariikhda weyn ee loo dalxiiso Istanbul xaafadda Fatih la yiraahdo ee la daawado weeyaan haddaba ninka miskiinka ee sambalka ee iska fudud maxaan uga jeedaa walaalayaal waxaan uga jeedaa bal mid aynu isweydiino imisa idin kamida iyo inanba dhammaanteen oo intuu dukaan galay Carrefour ama Leclerc ama Intermarché galay wax yar soo iibsay islaam milix ama wax yar oo kale iibsay islaayo 5 shay oo kale iska soo qaatay oo yaani ishiisu intay ku dhacday oo soo qaatay
ويبدأ تبان مالينيا كل يعني ويقول عادي إذا كمية التعيد يقول عادي استطاع طبعا شيخ طبعا سيدو كله بدنا أنت كباب لا أكبر تأم بحدال واحدة دنان لو مصمين يوم أو أرتي يريدو أرياء أويون وبالحبيت كباب أنا يجي لعتي إن أو إسكعون أي قسمي إمسا شيء شلمد أما دار أما كبك سوقا هذا بقى وحال دي سيدا وحال فكر وحال هذا جوشنا وحاجوه الرئية إن فكر لهلا فكر كاس جوجل لي وحويه هاي جوش قالن تنتو جوجل لي وياه كانت هذه أدبر حتى يدكم محل قليل تدفع عن باتهين اسكت دوبان باتهين ما لها كلا يعني تبنى خير في واسك بدنيه إلى هاي وده هذه لكن فكر كان دي سيدا وحويه ميت كسر إذن كمدي إنه صندوق يشاء ويلاحظه المدة كنا مركبة وحيرة بصراحة على التليفون في يلعبوا قاضي يدي بدي بقول هذا يلعبوا نقنية إن أما كارير بسيب سنة وحقنية وحضية فالمعلم ما حكم ده هنا بيشي دور معلومات قف يلاحظه كسر قاضين عن حضيبة ولا بدأ يرى مشان تاير صندوق كوريدو صندوق أنا إنه كود القرن كابا واحد إنه كود قرن بقى إنه كود بدنا بسوماليين وندعنا كسوقات إن الإبسدي وحي عن شعلا كسوقات إن الإبسدي صندوق سقف كستوي قامي أو ضمير لكل ديا صندوق مركز كل ديا تانا الله بالوضع أنه أنا كل دنو أي مالين ما حكم ده حفلة دون كلام سمسة تانا قفل بس صندوق يسي كانوا ويرا كسوقات واني إبسدي ديوان ثاني فرا أو أي مسكوك إنه لا عتاسم بدن السنة إيه يربع راعي ولا لا لا عتاسم حي تري كرتابة اسمه ديني لا عتاسم حي تري كرتاب واحد رأوا الرسم فرق عن دولة هاي هو يدا تولد كل ما تدل كني واحد ودنتان واحد ويا أين أودي كرنا ديكتوتين بولا لا يودنتان واحد فضل المحير مالها تلوي كتجوا دكيل تجوا واحد سهل له إنك ينقو فضل حتى يسكت درسنا أي ولا لو جيريودا واحد جرح حرمات دبر ما نبى شيء حنون بدل اللي يجي شيء كيانه أو شيء تجوا نين قضية يبدو حلو واحد يدك عصرية تالي دينه تبدل ما نأكون تتصل صورنا وقت ما نحين واحد يريد يقول هالكن كتجي وتولد الكني كم إذا مقاليه تجي وحو أرخيتك والله ولا شيء ده يقولي كذا هذا نيا ولا دليل هذا لازم مركز هفتقارنا عيدت كير هذا أوبنة وحبنا اللي يسمى يمر هذا الفرق انتهاي تذكي ولا دي كذا هذا نيا تذكي وده قال روح ويدستي كم كشرين الشاحة أي كويب سدان كم كيبو قروري ما قاعينه بحينه وحيله والبيت ورسنيه أيام لها كيمي كم كيبا طبعا كنا $1 كاري طبعا كم بدور في كويبية تذكي أمر خاصي وحيسي هو كرتين وسحي هاي حرمتي مركا ويقونا سناتي أو وين في نعتقد في وين ترى منو عدو الدلال كاسولين واحد وقلت إذا كلا مالها واحد ترى بالكورن ما نعيد إنتين صندوقية لا إنتين لا يرى كبسوقات واني سديتين نلاحنا أينو ما نعيد أبو ما كفر حسينه أما رمضان بسودوي أينو شن كم قدو سينو تضرب عنو مناسبة ووحمه ما بيعني إلى طهي تاسع تعالى إن أنا دلوا ذابه إلى هاي الأرض شيء كذا إن كسر ختمية تاكم دي وحوي ولا لا معلم ما كم إذا أيها واسكت علينا وحفر في صدق أيها ضدك حتى هلي نواب دينا واتعلى هينا ضبالا لأن قضية أيها إيش يقول ورياها ما أردت تعرض حلقة قرآن كل جانيسا لقى حامل قرآن كل حجانين لقى حاير بيكون فدينا حبلية إنما يكوبين إنما ضوا إنما يروي أردانو ما لها كده هدبته ده كسر كاتان أنه سولي بالعامة وما هينا حبله لكن هو يدود بس سمرة مرة أصيد دوب تاي الله بدل الوجود بنحكي لسعينا تياري آية خلقاسي وقول كذا يقول والله ما بقول $1 واحد نسميه كرنا أنت يرى نسكت درسنا ميل بي ولا ليه لبوليسا فكر كعدي حبار الهدي لهي قول أنا كسر حسنا يا ربي أيام لي هاي هذا الخير أنت سأكسر بالدنيا ولا المحسن أكيد حفلة الصومالي لا سفي عبان سودويننا كفر حسنا هاي حفلة الحلقة كل تاني قبيلنا هم بيان لا هاي رسم على نادر جبوتي أنت وسويتنا مرة أول على waxaa inoo haray oo aad balawada sugaysa gudoomiyaha gobol jahaliyadda reerno waa geesi uu soo halgamay wax badan buu ka soo taray meeshan daawaantii reerno aad ugu farxaya marka magaciisa maqlaan
وعبد الغنياني وأنا كانوا مطلعين طماط كانوا كسر كدوبية لا هذا هو قصاب السلام عليكم جماعة الشباب. waxaan u mahadcelinayaa dhammaanba marti sharafka kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladdan waxaan kaloo u hambaleynayaa ama aan soo dhaweynayaa garabkan haweenka quruxda badan ee halkan inoo fadhiya waxaan kaloo soo mahadcelin u soo jeedinayaa walaalaheenna reer Jabuuti xafladdan nagala soo qayb galay iyaguna aad bay mahadsan yihiin haddaan ka daba tago hadalladii waxa la yidhi وانا كثير عملوا دارنا يا وحد بدون وجع تحسنوا وجوا يا بس بعد الجلور مركا كل بدو ما كان الله تيو بيران يا هذا كان يلقون وما لا لقوا اليو ما فينا وحنا كثير عملوا دارنا هنا الداوي إنك وريها ولا تمنا صاحبي وري جمال وتفيق قام جوال لا يقدر كذا استلمنا هذه أدوم هالسيء haddii aan mahadcelinta is wada raacsado waxaan kaloo mahadcelinayaa la-aanteen aanay xafladdan qabsoonteen cali iyo marowdiisa nimco cali oo xafladdan guntiga u xidhay waqti badan geliyey daal badan u maray inay xafladdan qabsoonto aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana ka cudur daaray inkastoo aanay halkan joogin oon jeclaa inaan halkan ugu yeedho oo dadkana sacab uga dalbo iyo maamuus وأنسى هالموضوع مهتمين وحاسس لك شغال لم يلقبتي عبد الحكيم أنا بقول لك يو مروديسة وحن كرو مهالعلني يعني أنت عن أرتدي دجاجة ويدي أما عن هذا حسوسا أفكستو كغير عادي حفلة النسيت يكون بصوم الحي أفكستو ميلدير لوجيني وقت يسوي صهري قرش كسود حيي إنك السؤال وذا لا نحيو مالك قرنا يتحي ومالك قرن كتحي جمهورية الصومال وعن قفنا لجحين والمهسي قف كسا هل بيسكو مهسي هاي جزاك الله خير الجزاء ولا هاي حتى يكون مرحب لنا يسير كوب العوضي كيف يسلو كل شيء كل يبقى سيدي دكي يهري شيء ده ترى أربع مقالة من دقين مقالة لنا كل سنة يقصدو قف وقوة دي أفر سنة نوتشو هذا اسكتي كم حما اسكتي بان سمايني اسكتي الحمد لله عاوبلي سوي نجا جونا وحفلة قرطة بدن بسيط في عنو ساعة سوي نجا جونا وحرجينا مستقبل في اللو ومديرنا وقالنا إن يدو سنتر تهاي سنتر كي سومالي دام السوماليات تهاي وعاصمة دولي تهاي وفي لي قبل كان أنا أنت أقهر إنسان يعني كذا بدناي إن contribution كان عن سيسعو حفلة كقروح بدن سنة كذا ما يسوون بعضهم وكقيمة بدن وحنا سوير شيء لها إن contribution كجارم مجالوين وقابض يحس كم يصير لو وينين يا أما الله سبحانه كيا إن عليه مجالو كوكوبنا عليه مجالوين السويني وفرد يكون مدوبي وقابض يكون مدوبي سلا سنة مالين يعني كقروح بدن على هاي هذا ألقى هي تجانا فكرة حام waxaan qabaa ma soo jeedin lahaa 18 May waa maalin qaran oo la wada og yahay qof kasta Soomaaliland la wada og yahay aniga iyo inta aan ka mid tahay ama aan isku dhowdhownahay wax Soomaaliyeed ilaa horta ma baanan maqal sababtoo ah waxa laga yaabaa haddii waxa jiray qofka ninka dhalinyarada soddonka ugu yar tahay hadduu jira xataa inaanu garaan lahayn Soomaaliyeed ama Soomaaliyeed wax la yiraahdo ku garaacsan anigu Soomaaliland ma ku garaacsanay Soomaaliland taasana ku dhimanayna insha Allah waxaan rajaynayaa اعتراف waxaan sanadkiisa in Ilaahay اعتراف waxaan siiyo maadaama in 24 sanadood xorriyadeena iyo qadiyadeena u dagaalamayay waxaan soo yeerjeedin lahaa ma fikradeyda in Soomaaliland xusteeda qaab kale looga yar wareego oo si qadiyadii looga dhaadhiciyo muxuu ahaayay dadyoogii naga xinaayay inay aqoonsadaan ama United Nations inay fikrad kale la soo jeediyo macna weyn ma sameynayso inkastoo aan ay tahay shucuurta la xuso maalinka habeenka iyo maalinka dadka faraxsan ay tahay nooga dhigan tahay haddana waxaan soo jeedin lahaa in contribution laga sameeyo haddii aad imagine samayso dadka halkan jooga €1 haddii ay isku daraan ama €10
wax badan bay qabanaysaa in inta xafladda isi yimaado la wada hadlo dabadeedna marka dambena muusig la tunto oo la ciyaaro macno weyn inaan la samaynayn ma qabaa laakiin waxaa wax tari lahayd in sanadkiisa haddii la isi yimaado shirarka noocan oo kale la badiyo sidaas si leeg in contribution iyo qaaraan la ururiyo si dadkii tabaalaysnaa iyo dadkii danyarta ahaa ee dalkii joogay ee duruufaha qallafsan ee kala duwan ay haysteen leegina ay uga tarto innagana ay ashar iyo xasanaadii inooga soo gaadho oo dad wax qabtay inaynu noqono taasina waa taa كل يوم هنلاقي يوم إن جديد كوم هذا لو مرت شرف تا يوم بعده كعين هذا البدن وقت جونا إن كستوي نقول له ما وقت بدنه أين كنت أرجع نقول له ما هذا نبدأ كل يوم مركز هاو بشو على ذا الباقي ما نيا إسقاط باقي ما نيا إسكوداع باقي ما نيا واحدة تكون الفشل ويا ما نيا قف كسوان كنا لقينا وشي خلاص وتتصدق ما تصدق هذه قوانين نقطان يتم كنا مش غني يجينا مثلا aan ka cudur daaranayo inaan u mahad celiyo waayo ilaantood xafladdu iyana may qabsoonteen sidaas si leeg markaa waan ka mahad celinayna waxaan laana wixii erar ama xaflad ugu yimaada waayo markii koowaad ee taariikhda intaan garanayo ama aan magaalada joogay xaflad noocan oo kala ama Soomaaliland dara la qabto sidaasay tahay xafladdiina way inoo xirmaysaa waxay noo bilaabmayeen qaybta khudbadaha waxay noo bilaabmayeen qaybtii muusiga iyo qowkayaarka وعن كمان في موجود هذا العلم مرة واحدة مرسل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وحن والسلام يا دموينها سبيل هذا كان سنة كولدي أفريقيا لبعض سنوات كسوري شيء مالتي جمهورية الصومال اللي عندهم فرصة نغطي بالحفلانية ده ما هم مالنا نحرمها الله وما لنا عندهم فرصة نغطي بالحفلانية دي كل جمهورية الصومالية. intaa kadib waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo ku-xigeenkiisa golaha wasiirada golaha guurtida iyo ka sharci dejinta waxaan kaloo salaamayaa guud ahaan shacabweynaha reer Soomaaliland meel kasta ay kaga sugan yihiin dunida haddaan intaa kale ku daro reer Nant gaar ahaan guud ahaan jaaliyadda Faransiiska waxaan salaan uga sidaa maamulka telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo idin leh ciid wanaagsan dawal walba habsaamay hadana meel ciid wanaagsan inta kadib waxaan jecelahay gadan inaan xusuusiyo oo ma uu saaxiibkay walaalkay wiilaway waxa caawa reer Nant marti u ah kooxda daraamada ama wase shirida riwaayadaha ku caanbaxay ee dalka Faransiiska waa koox magaceeda la yiraahdo Hormuud waan la socdaa in waqtigeedu ku dheeraaday sidoo kale waan dareemi karayaa in aad loo xiisaynayo qofka ciyaarka iyo muusiga oo bilaaban doona balse idinkoo ii samreeya aan ka qaato waqtigiina qaaliga ah 2 minute waxaan jecelahay inaan kooxdaas iskiin baro oo hortiina keeno waxaan u yeelayaa gudoomiyahooda Abwaan Farxaan Qowka waxaan kaloo u yeelayaa isna Abwaan Jaamac sidoo kale aan hortiina keeno majaajilaystaha caanka ah ee Axmed Dhuxul waxaanan marnaba isla hilmaamaynin Shaafici Cabdi Ibraahim iyo Najiib Alfa waxaa isa kooxda qayb ka ah Ismacaale kasoo qeybgalayaal idinkoo mahadsan kooxdani waa kooxda daraamada waxa ay ka asaasan yihiin deegaanka Maynalwa magaalada Qoonshe waxay caawimaad u yihiin Nant waxaan ku kalsoonahay inay hortiina keeni doonaan madadaalo idinka wada qoslisa aad u xiiso badan mar labaad iyagana waan mahadnaqayaa inay hortiina yimaadeen aad iyo aadna waan idin wada salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceenu baxay bulshadaydiyey salan baaxaliyo bariidada guddoon halleeleemaga bulshadaydiyey tani waa bishii calankeenna bilan beledkeenna wacan buuraacataa bari iyo galbeed badheedh looga lulay halleeleemaga tani waa bishii dibtinaga baxdee nacabkii burburay waa xuskii qaranke maanta madaxuskii jamhuuriyadda qaranka
جمهورية قرنك وين سوماليلاند أو وش طريقة شيء وش قرنك اليوم وين ورنا وين ما طريقة لا ما حد طريقة لو بدي قرنك هو ما هو ما يبان هو قرنك أنا هو حروس طريقة العاوة تيجي قبل هاي يدينا سوا اللي قطع بطل بس هذا أنا قلت هوري عرفت هكذا تيجي وذيلي سهل قبل يقولي قمت تجيو سيده هي فاني سوي إلى صدر كل من بوقيه سوري يوم بيا ما أنت انتحوا ولا صحات سيد لكل جودو صفو سكية تكتب بريد السامية حلبان سلاكي مرتدى تاجي سرقية سورية ليش عم تقول صعد كديراوي صعد كديراوي سبيا دلنا موي يوين سجال ترى سونقط كم عنده وحي رجس كوسي جاي إن على كوسها لوي مو ولا صعد ثاني هدي أن سر لو تكره صعد الرجو بيبين ويا ترى صاري يوم هدان قبل يسيراني قبل نمذا ما يناسب ساك الله حياه ساك الله حياه سيبي يدي بيوعي سيبي لقوا وهذي سونقط كم عنده وحي رجس كوسي جاي ويا ترى صاري يوم هدان قبل يسيراني ولماذا ما يناسب ساك الله حياه ساك الله حياه ما أنت نسيتي كتجي ساك واحد جوجا وين ما أنت نسيتي كتجي ساك واحد جوجا ساك واحد جوجا ساتر ما هدي سالمدوبة ونقص الرينا وين النبض بس كاو طلع سير لورو دورو وين الصغير يا كبير سهنا هاتان هدي المرة ساحتان وين سوبا عتايا وين السوديو وين يسوري كاودا الله إلهي كسوة وريا وتوجه لكن لا تعرف هي كله وتقول هو نسي لكن هو نسي ما جاي هذا هو نسي هو حقولي قلعة ولا ما قشوا هذا على وارد كله وعلي أو تعرف اللي على كردوي يعني هو كله وحريري هراوك عراف تقوى كرجاء دولة كي عام بحال العلول العيالات إبكي نازلين عشان اللي كانوا في عبد الله السودان أي كي كنت تقول إنه ويا كله يرى كي يعاود هلو يعوز هلو على كينا هلو عردينا ورد ما قرأت أنا كنت واحد صوت تكرر معي أنا هربا فوق الصارة يا هلو على كينا عبارة كنت بين عوز كيني هذا سيد الله عمره عيد اللود هو روليس كده يعرفتنا لك يعني الروليس كده يعرفتنا لك يعني لما عرف في سعال هذا وش سعال كرر فرنسيس أنا لما عرف في سعال هذا وش سعال كرر فرنسيس عاد waxaan ku lahaa idin aan maqlan ciidigan ka farxay bataawiya soo lama هلا وعلى كيلو وطنينا عارفين إيه رجوع شياعة البومر يا أذكر تروى السمار وعلى كيلو كان كل البحناية علادين نقول هاجيو لكن ما يدع أسوسته عدا كيسا ورودا إيه عدا دوغر هايو من كيسا أساني مثلا يوم من كيسا عدا كتوجيه الله أسكتوا على كيلو كره هو هم كذبها تعال كده وطلعوا وتعال قصيدة وتعال قصيدة طبيعية عين كلام طبيعية عندنا هذا كده عادي فيه نوما كده شيء آخر أصل كان هات اللي تشوفه أما هنا في كودن نجا كان عنا على هذا كسرنا إلى يوم طلعوا نجا كان عنا على هذا كسرنا سيد اللي يسوي السيء ما هو كان عقول إنه هم على الفيول السوء وانا إيه وتعال وين هديس وكانوا بدك أساس ما نقدر بنقول أو أساس ما بنيادي dadka la kala qaybshay qolo meel taalo qaaradaha kala kala sheegay kala maroonay dalcadiisa waa ruux kasta qaxar ka dhooray hadii aan qaranka Soomaaliland min maran qodob ka faalay qabsoo ku dhaafay wadda ilaahay siiyay ciidan qaran weyn quraanka sharciyada oo lagu gooyay Soomaaliland qodob ka faalay wadda ilaahay siiyay ciidan qaran weyn quraanka sharciyada oo lagu gooyay salaadin ku qaaliya dadka nabad ku qayshaareen قصص يوم هذا آخر يقول كنبي جينا صلى الله عليه وسلم أنت تدور كوينا نحر كدورة يا أنت تدور كوينا نحر كدورة يا وقال معنا كنا هاي قادر مهدي قربنا بدوها وصوغا كان هاي يا غريبة يا وقادر مهدي
haybta qarankeena noqon waa qariban tahay qoloqolo in loo kala baxo la isqadiri waayo nin qabiil u ololaynayaa dunida waa quse ummad yahay ilaahay qirtee qalafka diidaysa ummad yahay qaluuca diidaysa ee qayrka fidinaysa ummad yahay qurxoon ee ilaah qiimka u yeelay ummad yahay nafkii qoorsataa qalad u diidayso qof kasta wixii uu qabto waa loo qadariyaayo diiwaano qaran baa jira lagu qorayaayo qabanqabanimay waa inaan qayb ka noqonaa xaaladaha adduunyada halkii uu qof naga joogo waa inaan qadiyad muujinaa qiro goniya